boqolaal qof oo danyar ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab ee waddanka Kenya ayaa loo sameeyay barnaamijka afurinta bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay aad ugu baahnayeen. Barnaamijka afurinta xeryaha qaxootiga ee Dadaab laga sameeyay waxaa si wadajir ah iskaga kaashaday ururka Xidig iyo ururka samafalka Soomaaliyeed ee Alpha Trust. Sheekh Cumar iyo Sheekh Abubakar iyo Gudoomiye Daahir Cali Kulmiye ayaa ka hadlay muhiimadda ay u leedahay afurinta walaalahooda ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه حكوسي قد جينا وحيت سفر كاكم مغنى دمان دجانا دقين ولالهنا الصوماليات ما شاء الله تعالى حدا وحنجونا وحيت حرادة داداب ما أنت ومالن بلسون ومالمها وغير كبدن شرف في نقطة أنا ولا الصومالي أن لا أفرن أني ما داداب أنجي وددينا شو عمر شو أبو بكر معني وقال لي أورك سمفلك الصوماليات يعرف فترة وحنا برنامج كان dhalinyarada jidaan xidig waaxid dhalinyaro u taagan wacyi gelinta ummadda Soomaaliyeed waa dad ahlu diin dad ahlu qeer insha Allah taala walaalahayna Soomaalida waxaan jeclaan lahayn in aad nala socotaan bishii soon oo qeeraysan hooyo walbo ama aabo walbo oo dhibaataysan in la afurno ama farxad gelin ayaan isku dayna xirada Dadaab insha Allah taala yaa ma soo socda bina la afur maalin walba إلا سومالك جاكن إن شاء الله تعالى سود دعوة صفر دار أيام كجرنا نسود دعوة إن شاء الله تعالى سومالي مرة بيجوكان إن شاء الله تعالى ونكسر جهنم هاي غيرك وحنجعلنا إنا وذا كيف صنو أنا جو أول عليه نعيها إنك تاجيهين إن شاء الله تعالى أورك سما فلك سومالي ده أور أتاجن حلي والبلا بيت ما كبلا الشقية أما أمد الصومالية جعل تذكر بعد أصلا إنه مرة والبا وقدمه وعليه أنا سوق قريب تاجن تسير barnaamijka afurinta bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa qayb ka ah barnaamijyo dhowr ah oo laga fulin doono gobollo kala duwan oo ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee bariga iyo geeska Afrika. Ilaadan Maxamed TV-ga Universal xeryaha Dadaab.